Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Weli waxaan ku guda jirnaa cutubkeena shanaad Al-Jabra casharka shanaad oo ka hadlaya kulanada salaxa. Rug salax ku taal waxa aynu ku aqoonsan karnaa in aan adeegsano kulano sida ka muuqata jaantuska hoose. Barta labada dhidib ay iska jiraan waxaa loo yaqaanaa marka unug ayaa la dhahayaa. Marka unug waa barta ay iska gooyaan dhidibadu. Waa kaas barta is gooyaan waa kaas x iyo y oo xariiqdan u taagan marka horizontal. Xariiqdan waxay u taagan tahay vertical u taagan tahay marka. Dhidibka y waxa u taagan marka xariiqdan oo tiro joog ah ay u taagan. Dhidibkaasna waxa u taagan isna xariiqda jiifka ah ayaa u taagan marka. Haddaba sida ka muuqata jaantuska sare kulanada salaxu waxa uu ka samaysan yahay laba xariiq tiro oo isgooya. Rugta bar kasta oo ku taala salaxa waxa inoo sheegaya marka kulanada rug kasta waa lamaane horsan. Tusaalaha koowaad waxaa la yidhaha marka ku muuji xarafka barta ay ku kulmaan marka lamaanaha horsan oo ah 4,3 oo furfura ila socda. Waxaan siinaa tusaalaha koowaad 4,3 waa furfurayna marka 4,3 waxay u jirtaa 4,3 waxay u jirtaa x, y ay u jirtaa. Ugu horreyn waxaa la soo hormarsiinaa dhidibka x la soo hormarsiinaa kadib waxaa la keensanaa dhidibka y ayaa la keensanayaa. 4 waxaa iska leh marka hadda x ayaa iska leh. Sidoo kaleeto 3 waxaa iska leh marka y ayaa iska leh marka. Waxaa la soo hormarinaa mar walba x ayaa la soo hormarsiiyaa ama dhidibka x ayaa la soo hormarsiiyaa. Intay ku kulmeen marka 4,3 intay ku kulmayaan. Qaybtan waxaa loo yaqaan horta waaxda koowaad ka dhiganaynaa. Qaybtan waa waaxda koowaad x iyo y waxay ku joogaan marka plus ay ku wada joogaan. Waaxda labaad x iyo y waxay ku joogaan marka y waxay ku joogtaa plus ay ku joogtaa y plus ay ku joogtaa x-na waxay ku joogtaa marka minus ay ku joogtaa. Sidoo kale waaxda afraad waaxda saddexaad x waxay ku labadooda waxay ku wada joogaan marka y minus ay ku wada joogaan y minus y x-na minus ay ku joogtaa. Labadooda waa minus ay ku joogaan. Waaxda afraad y minus ay ku joogtaa x-na plus ay ku joogaan marka. Waaxda koowaadna waxay ku wada joogaan marka plus ay ku wada joogaan. Halkay ku kulmayaan marka fiirno 4,3 waxaa iska leh marka x ayaa iska leh 4 bartan ayaa kasoo baxaynaa. 3na waatana halkan ay kasoo baxaysaa marka 4na inta ay kasoo baxaysaa. Barta ay ku kulmayaan waa halkaas. Barta waxaa ku calaamadeyn la yidhaha marka xarafka ayaan ku calaamadeynayna. 3 oo x ah y ah iyo sidoo kale 4 oo x ah bartan ay ku kulmayaan marka. Mar walba waxaa soo hormaray dhidibka x ayaa soo hormaro kadibna dhidibka y ayaa lagu xijinayaa. Tusaalaha xiga aadna. Tusaalaha labaad meeshan waxaa ku haysnaa minus 3,1 ta'na waxaa la siiyey 3,2 ja waxaa la siiyey minus 5,3 x waxaa la siiyey 0,4. Minus 3 x iska leh dhidibka x waaye y saanay u jirtaa marka. Fahma meeshaas. Minus 3 iyo sidoo kaleeto 1 intay ku kulmaan marka minus 3 oo x ah dhanka iga xigta iyo sidoo kaleeto x oo y oo 1 ah intay iga xigta. Marka waxaa aadeynaa waaxda labaad aadeynaa. Y intuu plus ku yahay sidoo kaleeto x intay minus ka tahay waa kana y plus iyo x oo minus ah. Minus 3 intay kasoo baxaysaa marka iyo sidoo kaleeto 1 halkaasay ku kulmayaan marka bartaasay ku kulmayaan minus 3 iyo 1 oo y ah.
3,2 3,2 3 waa plus 2 na waa plus halkay marka ay jiraan waa waxda koowaad y plus ay ka tahay x na waxay ka tahay marka waxay ka tahay plus. Okay, afiirno marka 3 afiirno waa kana 3 oo x ah iyo soo kale 2 oo y bartaas ay ku kulmayeen bartaas ay ku kulmayeen meesha waxa ku kulmaya 3,2 bartana waxa ku kulmaya marka -3,1. Okay, -5 iyo -3 waa waaxda afraad -5 iyo -3 waa waaxda saddexaad waa waaxda saddexaad wada minus ay ku joogaan marka -3 oo -5 oo ah -5 oo x ah iyo soo kale -3 oo y ah bartaas ay ku kulmaan -5, -3 bartaas ay ku kulmaan. Okay, 0,4 aab idana 0 waa unaga bartaas waay marka 0,4 4 na aab marka 4 ay iskale marka y ay iskale 4 waxa iskale marka y ay iskale bartaas calaamaysanana meeshan waxa ku kulmaya 0,4. Okay, graph sana loo sameeyaa marka calaamadahana iska fiiri mar walba ay shaqeynayso. Okay, leyligana iska soo fiiriya